Harris Qiro Channel. Like, subscribe. wadankayga xooban xeelaad u jecelahay wadankayga xooban xeel aad u jecelahay laygama xigsanay xinjir baanu qubaya. fanaanka Nimcaan Hilaac ayaa soo duubay muuqaal murugle taas oo uu kaga damqanayo dhibaatadii soo gaadhay suuqa weyn ee Waaheen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland taas oo saacadihii ugu dambeysay iyo maalintii shalay ahayd ee la soo dhaafay laga soo qaadayay sawirro murugle waxaana halkaasi ku burburay hanti aad u fara badan oo ay ku qiyaaseen xukuumadda iyo mas'uuliyiinta Soomaaliland 2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Arrintani ayaa saacadihii ugu dambeysay waxay ahayd mid bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka reer Soomaaliland murugadu ay ahayd mid ay isla qaybsanayeen taas oo gurmadka ka imanaya dowlad deegaanka iyo sidoo kale fariimaha kala duwan ee ka imanaya bulshada Soomaaliyeed ay ahayd mid si weyn laga wada xumaaday dabkii ka kacay magaalada Hargeysa taas oo lagu tilmaamay in ay ahayd masiibo qaran. Haddaba Nimcaan Hilaac oo ka mid ah dhalinyarada reer Soomaaliland oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa si weyn uga murugooday suuqa weyn ee Waaheen taas oo la og yahay waqti xaadirkan in hanti aad u fara badan ay ku burburtay. Suuqa Waaheen waxa uu ahaa suuqyada ugu caalamisan gudaha Hargeysa marka la eego maqaarada iyo sidoo kale dukaamada ku yaalay oo aad u camirnaa halkaas oo dhibaato ay ka soo gaadhay ganacsatada. Nimcaan Hilaac ayaa hore u sheegay in xilligii uu ku sugnaa gudaha magaalada Hargeysa uu si weyn u xasuusto suuqaasi iyo baaxadda uu lahaa haddase laakiin uu yahay mid la murugoonaya bulshadiisa uuna aad uga xun yahay dhibaatadaasi soo gaadhay suuqa weyn ee Waaheen. Murugada kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay la qaybsanayaan walaaladooda reer Hargeysa ayaa ah mid saacadihii ugu dambeysay baraha bulshada iyo guud ahaan laga dareemayay halkaas oo tacsida iyo fariimaha kala duwan ee la soo dirayo ay tahay mid si weyn dadka reer Hargeysa ay ugu diirsadeen ayna ugu mahadnaqayeen walaaladooda aan xilligan gacantooda waxba ku jirin ee aan la soo gaari karin. Laakiinse waxaa jirta shakhsiyaad ay tuhmayeen reer Hargeysa oo haba yaraatee kuna dhaamay dhanka jeebka iyo sidoo kale macaawinada dabka in aanay waxba soo gaarsiinin taas oo xukuumadda Djibouti ay ahayd xukuumadaha aadka dadka reer Hargeysa ay u hadalhayeen maadaama ay tahay dowlad ahaan awood dhaanta marka la eego dhanka awoodda dabdamiska lagana yaabo in Ismaaciil Cumar Geele in uu soo diri karay dabdamis halka dowlad deegaanka oo ka fog dhanka Hargeysa imaanshihiisa ay keeneen ugu yaraan booyado iyo sidoo kale dabdamisyo casri ah taas oo ay kaga qayb qaateen in ay damiyaan dabka. Si walba haatee ugu dambeyn waxay noqotay mid lagu guuleysto in dabkii ka kacay suuqa weyn ee magaalada Hargeysa in la soo afjaro taas oo si weyn loogu farxay walow aanay jirin suuqa weyn ee Hargeysa in dadka loo wada fasaxay maadaama uu howlgal ka socdo. Xukuumadda iyo sidoo kale dowladda hoose ee Hargeysa ayaa ka wada suuqa weyn ee Hargeysa in ay wax ka bedelaan sidii hore u ahaa maadaama ciriirigii faraha badnaa iyo suuq oo aan lahayn wax wada ay yihiin kuwa hadda banayn ugu jira si wax looga bedelo xaaladda in aanay dib u soo noqonin. Waxaana tacsida iyo tiiraanyadu ay ahayd mid bulshada Soomaaliyeed haddii ay noqoto fanaaniin iyo haddii ay noqoto dadyow kale oo siyaasiyiin ah ay soo dirayeen waxaana saacadihii ugu dambeysay ahayd mid si weyn baraha bulshada looga dareemayay. Haddaba arrinta aadka u murugada leh ayaa ahayd sawirrada muuqaalada laga soo qaadayo goobihii gubtay iyo guud ahaan dadkii hantidooda ku waayay halkaasi oo aad moodo in xaalad tsunami ah ay ka dhacday taasoo lagu tilmaamay in wixii ka dhacay suuqa weyn ee Waaheen uu ahaa masiibo rabbaani ah taasna ay tahay in Alla lagu mahadnaqo loona baahan yahay in ganacsatadu in Alla ay u soo noqoto dadkooda Soomaaliyeed ee bakhtinayana loo baahan yahay in maciishada ay ka jabiyaan maadaama iyagu ay yihiin kuwa jeeb dhaama hantidana ay tahay mid aakhiro la isweydiinayo oo la isugu eegayo
taas oo ay habboon tahay in qof kastoo adduunka korkiisa hanti ku leh ama ku haysta dhaqaale in walaalkiisa uu xasuusto ay muhiim tahay. Waqtigan oo ay tahay bisha barakaysan ee Ramadaanna loo baahan yahay in bulshadeena Soomaaliyeed meel kastoo ay dunida ka joogaan qofba qofka uu jeclaamo in uu walaalkiisa afuriyo ama uu wax ka siiyo, maadaama hantida qofka la siiyay ay tahay imtixaan sidoo kale lagu imtixaanayo qofka adduunka dushiisa jooga in hantidaasi uu qofka walaalkiisa ah ee gaajoonaya wax ka siiyay iyo in kale, taasoo alla qof walba uu ugu talagalay siduu uu doono, taas oo la filayo in arrinta waqti xaadirkan qabsatay shacabka reer Hargeysa gaar ahaan suuqa weyn ee Waaheen ay tahay masiibo rabbaaniya loona baahan yahay in bulshadu ay ka waantoobto sadaqa la'aanta iyo sidoo kale ganacsatadu in ay bulshadooda u nixi waayaan. Isku soo wada duubo xaaladda cakiran ee ka taagneed suuqa weyn ee Waaheen ee magaalada Hargeysa iyo sidoo kale jahwareerkii ka dhashay dabkaasi ayaa ahaa mid xaaladii degdeg ah kusoo rogay magaalada Hargeysa, taasoo ciidamada ammaanka, kuwa booliiska, militariga iyo dab-damisku ay hayeen kuwo si isku wada jir ah ugu gurmanaya bulshadooda, halka bulshadoodana ay hayeen kuwo u gurmanaya ciidankooda, taas oo lagu tilmaamay inay tahay wada shaqayn ka dhexaysa bulshada iyo sidoo kale ciidankooda inay tahay mid aad loogu farxay, haddana ay tahay mid lasoo gabagabeeyay loona baahan yahay in taakulaynta wadajirka iyo sidoo kale halkaasi laga sii wado. Geesta kale, fanaaniinta iyo sidoo kale dadyowga caanka ah ee tacsida ka soo diray bulshadana u soo diray reer Hargeysa ayaa ahaa mid arrintan ay la qaybsanayeen bulshada reer Hargeysana waxay ahaayeen kuwa uga mahadnaqayay walaaladooda tacsida u soo diraya. Nimcaan Hilaac ayaa ka mid noqday shakhsiyaadkaasi, ugu dambeynna waxa uu ahaa mid la murugooday xaaladda ay ku sugnayd Hargeysa iyo guud ahaan ganacsatadii ku burburtay hantidoodana halkaasi ku weyday, maadaama ay ahayd mid aad looga xumaado arrintii ka dhacday Hargeysa. ayaa ahaa mid xaaladii degdeg ah kusoo rogay magaalada Hargeysa, taasoo ciidamada ammaanka, kuwa booliiska, militariga iyo dab-damisku ay hayeen kuwo si isku wada jir ah ugu gurmanaya bulshadooda, halka bulshadoodana ay hayeen kuwo u gurmanaya ciidankooda, taas oo lagu tilmaamay inay tahay wada shaqayn ka dhexaysa bulshada iyo sidoo kale ciidankooda inay tahay mid aad loogu farxay, haddana ay tahay mid lasoo gabagabeeyay loona baahan yahay in taakulaynta wadajirka iyo sidoo kale halkaasi laga sii wado. Geesta kale, fanaaniinta iyo sidoo kale dadyowga caanka ah ee tacsida ka soo diray bulshadana u soo diray reer Hargeysa ayaa ahaa mid arrintan ay la qaybsanayeen bulshada reer Hargeysana waxay ahaayeen kuwa uga mahadnaqayay walaaladooda tacsida u soo diraya. Nimcaan Hilaac ayaa ka mid noqday shakhsiyaadkaasi, ugu dambeynna waxa uu ahaa mid la murugooday xaaladda ay ku sugnayd Hargeysa iyo guud ahaan ganacsatadii ku burburtay hantidoodana halkaasi ku weyday, maadaama ay ahayd mid aad looga xumaado arrintii ka dhacday Hargeysa.